soo mashquulay gaari abaay iskuulkeedii taa markaa sidee loo qiimeeyaa heshiisyada shidaalka dalalka ajnabiga ah oo ay la galaan dawladaha kale ama shirkado mahadsanid طبعا waxaa lagu qiimeeyaa in labada dal ay bilateral agreement labada dal ay heshiis wada galaan oo ku saabsan khayraadka ay wadaagayaan shidaalka laga qodayo iyo in haddana uu jiro heshiis kale oo dalka u yaala sida annaga noo yaala waxaa noo yaala BSA product sharing agreement taasoo ku cad sida khayraadka labada dal u wadaagayaan waxa weeyaan waa hab ilaalinaya khayraadka Soomaali iyo shacabka Soomaali degma ilaa gobol ilaa federaalkaba marka waana habka ugu fiicnaa hadda adduunka markii la eego BSA-ga Soomaaliya markii loo barbar dhigo adduunka waa kan ugu fiican Soomaalidu ayagoon hubsanin ayay ka boodeen oo dabcan ay qayliyeen sababtana waxay ahayd jaraa'id la yiraahdo Nordic Monitor oo ku yaala Sweden oo ay leeyihiin mucaaradka khatarta kuwii afgembiga ka sameeyay Turkiya oo aan hadda heshiis la saxaanay ayaa qoray been abuur inuu dadka mislead gareeyo laakiin waxa weeyaan waa heshiiskan waa heshiis standardka caalamka waafaqsan ayna jirto hay'ad ilaalinaysa shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda si anaga danno ah marka waa heshiis habka marka la eego oo dadka qaar dalal kale markay fiiriyeen waxay yiraahdeen Soomaaliya oo wali shidaa soo saarin inay heshiis noocaas gasho waa wax aad u wanaagsan marka professor Shafici ma jiraan dawlado sida Soomaaliya oo kale heshiis noocan kale la gashay dawladaha kale ajnabiga ma jiraan ها way buuxaan dalal badan ayaa isla gashay oo heshiiska Soomaaliya hadda laga qeylinayo kale for example in Soomaaliya iyo Turkiya inta ay uga noqonayso cost recovery waxaan la yiraahdo intan ay Turkiya lacagtii ay gelisay uga noqonayso ay 90% ayadu qaadanayso oo Soomaaliya ay shan helayso royalty lahaanshaha inta kale oo soo hartay 90 wixii ka soo haray waa 10 Soomaan 10 kana Soomaaliya 100% ay qaybsanayaan oo dabcan dalal badan oo galay jirta oo aad nooga yaraa markan si kooban Soomaalida ugu sheego ay wada hubsan karaan xaqiiqadaas in Soomaaliya heshiiska ay gashay inuu standardka caalamka yahay Soomaalina dan u yahay waxaan u sheegayaa dalkan Carabka oo dhan Soomaaliya way ka wada yaraayeen sida Sacuudiga oo kale dalalka for example cost recovery yani dalkii maal gashtay shidaalkan lacagtii uu galiyay intuu kala soo noqonayo lacagta uu qaadanayo waxa galay dalka Indonesia iyo Iraq Kurdiyiinta anaga way naga badnaayeen 100% way qaadanayeen oo dalka wax ma qaadanayeen may Soomaaliya ay may royalty-ga waa shan oo lahaanshaha 10% waan qaybsanaynaa 10 kan qaybsanaynaa haddana shantooda waxaan ku sii leeyahay canshuur waxa jirta Gambia iyo Ecuadorian Guinea 90% way nala sinaayeen qaybta kale oo royalty-ga oo shanta la dhahayo Soomaaliya shan bay heshay la dhahayo waayo anagu sababtu waxa weeyaan shidaalkii wali lama soo saarin haddii la hubo in Soomaaliya shidaal ay leedahay cost recovery intan uu ka yaraanaya cost recovery waxa weeyaan waa lacagta maalgashiga ha waa lacagta maalgashiga aad baad mahadsantahay si kale haddaan u dhigo Soomaaliya hadday lacag ay heesto ay ku maalgeliso shidaalka lacagta lagu baarayo systemic hadda halkan Turkiga isticmaalaya waa systemic 3D baa la systemic 3D wax weeyaan waa baaritaan tii hore ka fiican hadda X-ray-ga raajada iyo MRI-ga musmid baa aad bay u kala duwan X-ray-gu wuxuu sheegay hal iska madow wax lama garanayo laakiin kan MRI-gu waa maxay waxaad u arkaysaa bit by bit khaliyadii meeshii yani xanuunkii markiiba waa la arkayaa waa casriga hadda Soomaaliya hadda soo gaartay marka tan Turkigu ay isticmaalayaan waa systemic 3D adduunku ma helin dalalkan hadda royalty-ga ay ugu qaatay waxay qaateen Ecuadorian Angola Sudan Kazakhstan meesha aan Soomaaliya 5% ay ka qaadanaysa lahaanshaha ayagu waxay qaateen 2.5 dalka Guinea oo anagu heshiiska markaan galay ayaguna galay 2% kaliya ay qaadanayeen hadda maanta waxay soo saaraan 1.4 bilyan 4 milyan ay soo saaraan maalinkii dalka Guinea Guinea waa Latin ku yaala marka sababtu waxa weeyaan anaga buuq baa mar walba nala gelinaya oo kuwa dalal aan doonayn inaan shidaalka noo soo baxo ayaan la gelinaya marka buuqan haduusan dhamaanin hore uma soconayna dawlad walba isku dayda waxa la gelinayaa buuq wixii baa istaagaya dalkaas hadda anagu isku waqti baan yaan bilownay hadda uu soo bixi lahaa markaas buuqana Soomaaliya khatar ku yahay waan ognahay dalal badan inay jiraan anaga aan la doonaynin waan ognahay dalal badan inay xataa yaryarka khawaarijta ay caawinayaan si aan waxan u soo saarin oo hadda iska wada cad adduunku wada sheegayo maxay xagga uga baxayaan maxay xagga u tagayaan waxa la diidan yahay shidaalkan oo ay soo saarayaan walaalahanagu marka dhinaca kale cost recovery-ga yani lacagta Soomaaliya hadday gelin lahayd waa lacagta soo kabashada cost recovery wax ma soo kabashada hadaan u gelin lahayn
كنت بقول كيف نقول لها هذا ما بهو بنبا إن شدال هسنا ما بهو